السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وايدين سلامة أصحابتا إسرا وانيغو ريان أدقون يوتيوب كي ريان أدقون أكو قران أصحابتي دكو سو دوادا فيديو مانتو حايدين ودنا أني أبايو بلاكون كي فيديو غانو دميستر نوحا كسو داوان دونتان يوتيوب كيغا نبايا إدين سو ديغ دونتو هوس إن شاء الله وحارجينا إن إيسو دوي دونتين أصحابتا إسرا دمانتين وايدين ودا سلامة يا مركاليتو balakoonkeena saana ka dhiganay insha allah tacaala isagoo faahfaahsan youtube-keyga kasoo daawan kartiin hadduu ilaaha yiraahdo abaayana insha allah tacaala iyadana waa isla sameyneynaa isigana iyadana waa idiin soo dhigaysaa haddii aa iskiin baro aniga waxaa ahay designer dharka sameeya insha allah qurxinta guryahana kama marna iyo nadaafada wax waliba oo faa-iido leh oo nolosha kamid ah insha allah waxyaabo badan oo faa-iido badan youtube-keyga soo geliya asxaabta isra waxaa rajeynaya inaa isoo dhawey doontiin dhammaantiin waxaa idinku soo dhaweynayaa gacmo furan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام عليكم سودو هذا channel كيغا إسرا ديكور ولا القالي هذا نداوانا ديتا مركو كوغوري سبسكرايب هنغي إلو بندو إلهي إدمو نورالهي maanta waxaan soo sameeyay video mar badan la iga sugayay oo ogeedeen balkoonkeyga hagaajinaa maxaa idin soo sheegay long time ago processkiis mar hore bilaabay laakiin mashquulsanaay video isoo gashay ramadaankii iyo mataqaana anigoo alxamdulillah mashquulka aad igu badnaa dartiisa ayaan idin la soo wadaagi waayay laakiin hadda ayaan dhameeyay balkoonkii shaqadiisii soo markaad waxaa arki doontiin meesha ka soo bilaabay sidii la ahaay ma fahanteen 2 daqiiqo saan uga soo dhigay walaahi bil iyo ka badan ay igu qaadatay soo markaad waa kana sida u jeedin waxa waay videogan waxaan duubay before Ramadan ka hor ayuu ahaa markaas uu iibsaday guraastan waa alaabaha samarka waxa la soo jibiyaa bisha labaad dhamaadkeeda ilaa bisha koowaad dhamaadkeeda meelahaas aad loo soo jibiyaa sida alaabaha balkoonkii waxyaabahaas oo kale marka aniga gabar abaaya isla soo gadanay maasha Allah abaayada qaali ba maqlay nafisa ani abaayada isla soo iibsanay soo anigii waqti ku hagaajiyaa waa xirxire meel iskaga tuur xirxirada hatta waxay ka qaadatay waqti badan fadhiga ku xirxirooya fadhiga hatta markaan ku xirxiraa fadhi ma ii oolin maxaad inta fadhiga soo dhiganin mar hore ahayd adi marka wallahi waqti iga soo qaadatay inaa xirxiro iyo inaa soo hagaajiyo labadaba isku keenidii wixii dhana igu badatay hal qof ahay oo wax baranayo oo ilmo hooyo ah oo shaqeynayo I think in iska fahmi kartid soo habeenaa bilaabay habeenkii xaaladda dhaqaaji kartid as dhahay waa iska seexday subaxii shaqada markaa ka imaad haddana u soo laabtay maalinkan u jeedin mahano waa u soo laabtay haddana hadda waxaan sameynaa hadda hatta markaa midmeena haddana habeenkii u soo laabanaa inta bilaabo hadda isku toosiyo sida isku qaadanayaan kadib ka baxaa wixii gabadheedu ku ciyaaraysaa meeshii dhex yaalo soo marka waa kana habeenkii waxa xirxiray waa maalinkii isku toosistay waan ka tagay shaqaan ku laabanayay waan ka tagay and then waa u soo laabtay habeenkii haddana waa sii wada caagadeed biyaha iyo agtaala videoga muxuu ahaa mar hore bismillah lagama sheekay karaa ku dhahay roogay waxa raahata guriga sa arkaysiin marka waa kana waan dhajinayaa bahaladii wixii dhanaan soo dhajinaa abaayi aniga sameeynayni ani walaashay meeshan oo Sweden waxa waay wixii oo diyaar ma arkaysid dadii adiga wax celis gadanaynin waxa soo gaday wax kasta asagoo cusub kadib aad xirxiranaysid ama waxa dukaanka lacag siinay soo marka kuraastan maadaama iska fududaayeen oo 3 xabo iska yihiin xabad ka dheer 2 xabo aniga xirxirtay waayo kuwa oo fadhiga aan lacag ka bixiyay in la isoo saaro oo la ii xirxiro soo kuwa waxa dhaanu ana ku jimicsanahay soo meesha dhan waxaan dhawaa soo xirxiraaya shaqadiisa ma yaraan actually shaqo fiican oo iga qabtay soo markii soo xirxire oo soo dhameeyay haddana maxay shaqo noqotay inaa balkoonka dhaqami sugaayo markaas abniid si fiican iga sii jabtay soo hadda kuwa xirxiray xabadkoo ay ugu adkeey bool qalada ku xiray soo haddana buuga ku laabanaa si oo u soo helo meeshii saxda marka finally waxa keenay meeshii maalinka aan soo galay maalinka hadda u soo galay waxa waaye weekend hadda iniga videoga daawanaysi weekend gudihiisa waaye dhaqooyo intaas dhan balkoonku iska sii yaalay maan habeenin dhulka maan dhaqin wax maan sameynin waayo dhulka markii la dhaqaayo maxaa u baahan tahay si fiican iskaga dhaqdo waayo dast socdo waaye bahashana u jeedin ana ku dhagsaday waayo balkoonkeyga geesaha wuu ka banaan yahay oo darbi ma ka haysan geesaha waxaana wasaq u jeedin dhaqitaan iga sugayso so that's why aan la maqnay ma fahanteen la dhuuntay
wasaqda marka arka waa iska ordayle maalin kasta because kal ilaabina loo dhaqay rabtaa marka aan hadda waxaa sameynaa hal mar saan hadda marka u qooyay shaambo biyo leh ku qooyay kadib katalka oo biyaha lagu karkariyaa biyo ku karkarina waa ku daadinaa katalka marka biyaha ku karkariyo ku daadin marka qandaca uu ka yarabo kuleelka marada hadana marsiin doonaa ma fahanteen marada iyo burash shirisa ku dhaqaaya kadib hadana waa biiraaci doonaa haddii asaas la yeelin balkoonka wasaqdiisa ma go-eyso mid go-da ma ahan dhaqsi soo waxaan sameynayaa biyaha ku daadinaa dhulkan sidoo kale biyaha ku daadin doonaa meeshanna biyaha ku daadinaa kadib aan tirtirayaa soo marka taa biyaha ku daadinaa inaad duubaa hilmaamay walaalay karaali ahaada laakiin waxaa sameeyay waxaa waaye biyo karkarsan aan soo qaaday waxaa ku shubay meelihii dhan aan dhaqaayay soo marka waa ujeediin hadda weli dhaqitaanka caadiga iigu socday dhaqitaanka caadiga markaa ku dhadhameeyo waa baxay hadda biyihii doonay abaayada isii duubeysay biyihii doonay biyaha marka aad doono biyaan ku shushubi doonaa macala dhulka waayo busta oo ku dhegtay dhaqsi kaaga fujinaa biyaha markuu karkarsan yahay videogan anaa boobsiis ka dhigay haddii kale waqtiga intaan hadda u yahay wuu kasii dheeraanaa marka hadda biyihii markaa ku shubay oo wasaqdii waxaa waaye jileecay noqotay inaa la biiraaci kaliya rabtaa waxaa ku xuqayaa buraashkan si oo mataqaanaa oo gudaha waxyar dulduleel ayuu leeyahay wax dulduleel camal u samaysan si oo wasaqda iga baxdo soo marka dhulkiyaa soo tirtiray meeshii aan soo dhameeyey wixii dhanaa soo habeeyey alaabta dhanaa bixiyey fadhiga geliyey roogii waxaa soo dhigay oo balkooniga kadib aa soo laabtay bahashaana ujeediin anaa xirxirtay labada gees anaa ku dhegsaday bahashaan taagan oo loolaha bahash gaduuda igu dhirgana waa koolo oo waxaa waaye hal xabo dheer oo isku ahay soo marka anaa kala jaray si iga sii furfurmina koolo ku dhajiyey soo marka anagaa soo iibsaday gooni waayo balkoonkii balkoomadaas mujeeda aan tusinooyo camalu geesaa uga banaan yahay ilmo yarna way ii joogaan soo labada gees oo kursida iigu soo aadayso si ilmaha ayakoo kursida ku istaageen meesha uga dhicin ayaa waxaa samaystay waaba ka xirabo waa ujeedin maahan hadda kursigan haddii si walba loogu istaago ma ka dhacaayo balaas ilmahan anoo la soconin maba iga soo galayaan ma ahan waayo gabadheeda weyn caadi waa lagu aamini karaa inay meesha kula fadhiisato laakiin yariisaydeeda maasha allah speed qof ku socdo waa laguma aamini karo meelahan markaasaa ujeediin geedkan yar iska soo dhigtay geedkan fadhiga usoo gatay aada uma isticmaalin marka meeshaan hadda iska soo dhigtay oo balkoonka waan u fiican yahay balkoonka asigana wuxuuba ka caawinaaba inuu geedka halaabin maadaama roob oo naturalna iska jiro qoraxna ay ku dhaceyso qoraxdana geedaha way u fiican tahay waayo markaas soo gadanaysid ay ku dhahayaan blasera meel oo meexay ku dhahayaan dhig meel oo iftiin leh mataqaana iftiinka caadigana tuulig juuska meel leh dhigay ku dhahayaan soo marka madaas waay hadda inuu ugu fiican yahay meeshaan boob ii baasiya usoo dhigtay falaawasyaasha meesha ii saaran waa flowers oo fresh flowers ah waa arkaysin soo ma ahan fresh flowers iska soo dhigtay barkimahan oo cadcadka markii oo aan isticmaalino kale waxaan gashanayaa miiska dhexda ii yaala meel hoose ayuu leeyahay meeshiisa hoosaan gashanaya marka kaleetana waa caadi balkoonkeena roob wuu da-aa laakiin roob oo ma ahan oo gudaha xoog usoo galaya ma ahan haddii dabeel badan aysan jirin waa roob oo birtaas aan soo dhaafeyni birta meesha oo birtaan hadda oo balkoonka uu leeyahay aan soo dhaafeyn roob aada badan ma ahan laakiin aniga waxaaba sameeyaabo bac ayaa jirto oo lagu daboolo markii maalmihii roob jiro jawiga bacdaas iskaga daboosha marka kalena sidiisu ii yahay fiyooryaashtan tusino waa fresh waa banaanka meesha hoosteeda la kasoo gurtana waa ujeediin meeshaan gadaale geedahaas le aa u degay waa soo aruursada waa soo laabtay soo marka filaashaasha waa fresh sida ujeediin sidan yaro simbalka oo easyga noogu soo baxday waayo balkoonka wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii aada u rab inaa sameeyo oo kuraasteeda hore xataa sababta u bixiyey ayaa waxay kamid ahayd ma ii furmi jirin irida balkoonka soo that's why kuraasteeda hore u bedelay ahayd inaa waxaa raba irida balkoonkana isticmaal karo irida ii furmayso kuraastan ay guriga ii dhex taalo kuraasteeda hore ayagoo meel le-een oo ii cusub oo qurux badana iska gaday maxaa yeelay balkoonkaasaa rabay inaa isticmaalo marka hataa ujeediin waa kana balkoonkii waan isticmaalaya insha allah alaaba iga kalama maqnaay laakiin waxba macna malahan yacni adduunyadaaba kaamil noqonin waa suga haddaan dhaho 2 bil kale isii sugeysiin marka waa kaasa waarkana sidaan uu inoogu soo baxay balkoonka iska yaro qurux badan oo simbal waaye habeenkii sida uu yahayna waa idin soo hagaajin doonaa video idinkaga soo duubi doonaa hadduu ilaahay idmo habeenkii sida uu inoogu soo baxo insha allah yani habeenkii waxaa jiro nal yar oo hadda aan iska xareeyay oo aan xariirsado oo mataqaana ii shidan markii aan isticmaalayo oo habeenkii aan rabno inaan balkoonka joogno
qabow yar haduu ku qabto bustayaashaas usoo diyaariyay because wadanka qabowgiis ma la aamin karo hadda iyadoo kuleel karkaray haddana qabow iska soo dhacayo marka qabow haduu ku qabto bustaha garbaha soo saara waa insha Allah hadii kale tan yani waa iska fadhin kartaa cadceeda maasha Allah si fiican kuugu dhaceyso vitamin D free mataqaana adigana aad hawo ku helaysid soo marka waxay rajeynayaan in abaayoyin badan ay dhiirigelin ka helaan oo mataqaana balkoon abaayada uu yaalay waa ognahay balkoomada Soomaalida iska warheynaa badanaaye insha Allah ay soo kala toosiso oo alaabaha soo kala bixiso oo dhag ay ka soo dhigto insha Allah guriga dabaq aad u dheer ahaan waxa ku dhila soo habayso dabaq dheer haduu yahay ilmaan haysatid oona kugu xirneen balkoon netka ama shabaqa balkoonka ee iska dhaaf because ilmo lama ilaalin karo waxa waa ilmaha ili aragti wax labada hadda sii jeesatay ay wax isku sameynayaan soo marka ma dhigi kartid ilaa ana ilaalinayo way wax u baahan yihiin taxadar aad u badan soo marka qofkii mataqaana saas oo kale ilmihiisa uu yar yihiin gurigiisana uu dheer yahay iska dhaaf wax macna ma lahan yani markii ilmaha ku koran ama guri dhulka aad degtay ay habaysan doontaa aadaweys abaayoyinka raban inay habaystaan waa kuwaasa alaabta balkoonka meesha ka soo gaday waxyaabaha dhan waa idin soo sheegi doonaa kulli kartoominka qofka akhristo iska arkay qofka kale tan video kale ayaan soo gelinaya oo in kugu sheegi doonaa waxa kale walaalahay aad iiga codsada oo aan video idin kaga soo bin doonaa alaabihii fadhiga aan soo isticmaalay iyo jiifka kulli waa idin soo wadaa mashquul iyo aamusiyay mashquula meel ila galay insha Allah ii soo duceeya iskuulka ay dhamaan rabo xilliga u dambeeyo ku jira soo ugu dhaqso badan oo waqti u helo aniga waa idin ka jeclana video idin soo gali laakiin waqtiga la ii saamixin marka ugu soo horeyso aan waqti u helo ayaan idin la soo wadaagi doonaa duu Ilaahay idmo waa waqti xumo ihayso on baa mataqaana aan wax la soo galin la ahay because aniga video marka soo galinayo waa jecla waan rabaa in wax idin la soo wadaago laakiin maxaa soo galinahay ilaa xaalada og adinkan ii soo duceeyay insha Allah waana kana balkoonkii wax badan la iga sugay wala commentayaal badan ordayana arkay balkoonkii aan iska dhaaftay balkoon gorman la soo wadaagay la idhaayo waa kana balkoonkii waa idin la soo wadaagay saarajeenay waxa jiraan abaayoyin oo rabaan fikrado inay habaystaan ayagana insha Allah waan ku faraxsanahay marka soo dhawaada idin leeyahay meel yaro fiyo qurux badan ay iga dambayso oo doog waxa kale iga dambeeyo meesha wax lagu kiriileysto ama lagu dubto iyo meesha ilmaha ku ciyaarayeen waa all in one masha Allah waa aadaan uga helaa marka walaalahay waxa idin rajeynaa video ka hesheen inta video dambe oo sidaan kale aan ku kulmeenana waxa idin leeyahay khayr badan iyo caafimaad like tahnaga iloobina subscribe sidoo kale wixii ra'yigiina commentiga